markood ilaahay ayaa mahad iska leh marka xig waxaan mahad celinaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ugu horeeya agaasimaha qaybta shaqadii shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka sidoo kale bahda soo abaabushay ee baraka oo fursaddan inoo siisa maanta inaan halkan ku kulanno sidoo kale bangiyada shirkadaha gaarka loo leeyahay haddii kuwa korontada bahda meediyaha dhammaan waa salaama intaas kadib dabcan maanta waxaan meeshaan u joognaa sida boorka ka muuqato aragti wadaagga la xiriirto insuransiga dabcan Soomaaliya hadda marka aan ka hadlayno servicekan aad ayuu ugu bilow ugu yahay uu ku cusub yahay sida hadda agaasimaha uu ka dhawaajiyay waxaan aad ugu fiicnayna ama ay Soomaalida isku waxay jirta qaabka traditionalka ahaa qaaran insurance oo qofka markay wax gaaraan familkii iyo reerihii dib loogu laabto marka maadaama aan u gudubnay new era oo adduunyada isbedel uu ka socdo dabcan Soomaaliya inay la jeen qaado arrimahaas waa wax muhiim u ah waxaan rabaa inaan wax yar aan dhaho dabcan construction industry-ga Soomaaliya ka jiro mar walba waxaa aad ugu badan caseska ama qof inuu ku dhinto ama lug ka go'do ama gacan ay ka dhaawacanto ama waxyaabahaas dhammaantoodna waxaa laga yaabaa in maalmahaas anagoo meeshaan marayo geed oo kuwa qolyaha guryaha dhiso nin ka soo dhacay isla markii xataa baabuur meesha ma yaalo gaari gacana lagula cararay intii shaqada socotay inta kale waxaa la shaqadiina ku laabta qofkaas waa dareemi kartaa oo aanan familkiisa soo iska garab yarta iska aha haddana dhibaatadaas ay gaartay insurance aanan qabin laga yaabo qofka oo loo shaqeeyahane inuu markaas focuska uu saaro shaqadiisa marka baahi inay u jirto insurance-ga sida baraka oo kale waxaan ka dareemi karnaa case kale waxaa jiray dhismo oo hadda magaalada dhexbartameeda ku yaalo 2 sano ka hor 2 qofood ku dhimatay inay jidka I think laamigan marka aan ku meel kamid waa mar inaan si arbaabo laakiin 2 qof waxay ku dhimatay iyadoo dhismihii uu socdo carradii wixii ku soo dumeen marka waa dareemi karnaa caseska waliba construction-ka ugu sii badnaadaane inay u baahan yihiin dabcan transportation-ka baabuurtan waaweyn oo dhagaxada qada waxaa la sheegaa inay insurance oo ayaga lacag iska aruuriyaan shalay maraan dekada agteeda maray baabuur weyn ama markaas wuxuu dhahay kuwa naga leexida yarka mootada sanad maxaa dhacay wuxuu yiri lacag iska aruuriyaan hadii ku dilaan dadkaas ay lagu diraa marka asaga ma fahansana waxaan insurance iyo waxa ay tahay laakiin wixii aaminsan yihiin baabuurta dhagaxa wado inay qaaraan ee gooni ay ku jiraan in access u leeyihiin baabuur haday ku dhacaan aysan ka cabsanaynin for that reason ayaga in laga cabsado ay tahay marka arintaasna waa dareemi karnaa Soomaaliya marka dhinaca kale aan ka fiirno dagaalada ka jiro probability-ga qarax uu ku dhici karo waa janiskaas wuu jiraa even though riskiga uu sida hore uusan ahayn laakiin Soomaaliya jaaniso badan oo qarax qofku u dhici kara jiro idan u baahan marka inuu insurance uu galo dabcan dabka ama hadda markasta suuqiyaa gubto oo ama bakaaraha mar uu gubtay kii ugu dambeeyay waxa maleynaa Madiina uu ka gubtay marka insurance-ga hadda aan akhrinayno oo hor yaalo oo barakane waxaa qayb kamid ah inay ku jirto property-ga inay insurance gareynayso marka waxyaabahaas oo dhan waa muhiim ugu dambeyntii 2 maalin ka hor waxaa loo dabaaldegayay maalinta shaqaalaha adduunka oo aheeday first May shaqaalaha Soomaaliyeed qofka markuu shaqeynayo insurance ma ku jira shirkadaha dadkooda markay ku shaqaaleysiin hadda sida agaasimaha uu sheegay hadii ay wax ku gaaraan adiga ku taala in qofkii la dhaho adduunyada qofka marka shaqo la siinaa waxyaabaha oo lagu soo jiito shaqaalaha waxaa kamid ah caafimaadaan ku siinayna waxbarashaan ku siinayna all these things marka anigana wali waxaan moodaa inaan arintaas aan kasii fognahay laakiin iyadoo 2 maalin ka hor loo dabaaldego maalinta shaqaalaha laakiin shaqaalaheena oo dalka ka jira aysan haysanin ugu dambeyntii shirkadaha adduunyada ka shaqeeya Soomaaliya inay insurance hadda kor xasuustaa qolyo Malaysian Soomaaliya u soo wadaan waxay dhaheen annaga insurance-giina diyaaradda Soomaaliya inta saarantiin bisaan dhiibayna hadda Muqdisho ku dhimataan shaqo ma kulih markaas waxa waliba lacag qeyr caadi ah looga qaaday أنا ماليزياني هاين الصومالي رئيس أنا سوري هاي مركا مشروع وحن كودنا أو جارة الصومالية وحاله مركا قليل إنشورنس هلا تجو مركا لا تجو وحده هن أنت وسعتين صومالي أنت بدنا ويديدين مد أقولون إذا وحيتر صومالي ما تيجي سنة هلا أصحنا صمنا أنت الديار ده سعر أنت هدي واحد جاران بس واحد يبينا
laakiin haddii diyaaradda muqdisho caga dhigato wixii idinku dhaco falqiga lak idinkaa iskale marka wadan riski noocaasa ka jiro baraka inay intuu istaagto tiraado waa cover gareynaynaa xaqiiqdii waxay mudan yihiin in si gaar loogu mahad celiyo waan idinkaga mahadnaqaynaa insha allahu tacaala shirkadaha maanta oo ama bangiyada ha ahaadaan ama electroniga ama maxaa lahaa whatever sectors aa ka kala socotaan waxaan rajaynaynaa messageka inaan dib u qaadno la dhiirigeliyo shirkadaha noocaana ee wadanka usoo baxa ee rabaa inay dalkii dadka badbaadiyaan inay client ay helaan clientigna cerka kama imaanayo annagoo naga dhex imaana marka waa mahadsantihiin waa idinkaga mahadnaqaa mar kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu